رئيسل وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta tagay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho ayaa canaan kala dulacay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre ayaa markaa halkaas uu tagay waxa uu la kulmay caqabad runtii taagneed markii uu tagay garoonka oo amarka dul dhigayay. Caqabadaas waxa ay tahay in qaboojiyaasha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho aysan shaqeynin wali gudaha garoonka diyaaradaha uu ka jiro kuleel aad u fara badan oo runtii bulshada Soomaaliyeed ay dhibaato ku qabaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku amray wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya in garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho shirkadaha dhisaya qaybta qaboojiyaasha ajaanibta ah muddo isbuuc ay ku sameeyaan. wasiirka waxa uu codsaday 2 isbuuc in la siiyo balse waa uu ka diiday Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu yiri waxaan idin siinaynaa kaliya 1 isbuuc haddii shirkadaha ajaanibta halkaas isbuuc aysan waxba ku qaban karinna ha soo sheegaan oo shaqaale Soomaaliyeed oo injineer ah aqoon leh oo way aragnimo leh ayaan shaqadaas ku wareejinaynaa ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho markii uu tagay in qaybihiisa kala duwan oo kormeer ku sameeyay. qabilood bay ka laga joogaa inta gubatay dabku ka kacay 4 bilood ka badan tahay I think in 4 bilood ka badan yani arrimaha koronto sideedaba waa emergency arrin emergency oo dhacday oo ay maxaan ku dhahaa airportka shaqadiisa buddhiga u ah 4 bilood bay maqan tahay 3 bilood bay maqan tahay bil bay maqan tahay sina loo ma aqbali karo Jarmal baa laga doonay iyo Japan baa laga doonay xamar baa laga heli karaa kuwii sameyn lahaa xamar bay joogaan kuwii sameyn lahaa laakiin lama sameyn looguma talagelin haddana ma aqbali karno hal week baa wasiirku siinayna hadda qoladan laba ma siinayna hal week waa inay ku sameeyaan baashan cooling system hal week ala haysta hal week aan siinayna hal week waa inay ku sameeyaan suurtagal maaha waa la xalin waayay koronta la sameyn waayay marka Japan baa mid laga doonay China bari laga doonay Korea North Korea ka raadiyeen hadana waa waxa saxayn adiga kugu soo wareejiyaan injineer Soomaaliyeed hadda injineer okay injineer Soomaaliyeed banaanka taagtaagan oo sameynay contracting hal si ayaga lagu soo wareejiyo hadda sameynayaan waxa la rabaa aqliga bini aadamka galay marka taa inta noo marin hadaan nahay Soomaali marka wasiiro 1 week waxaan rabnaa baashan ayadoo coolinkeedu hagaagsan yahay oo qabow yahay oo sidan hadda ay tahay airportka yahay arag sil qolkan yahay inuu airportka noqdo airport la iska sideedaba airport ma wax waa laga soo gudbay airport dadku ay dhididka ka daayo oo qofku uu maxaan ku dhahaa marka hygiene kay dhibaysaa sumcadda inaga dilaysaa caasimadii way dalkan saan sheegay halkani waa muraayadii ummadda Soomaaliyeed marka airport waxa waaye aan lahayn cooling system airport ma noqonayo marka taasi dulqaad ma leh waa zero tolerance waxaan u baahanahay 7 days in lagu sameeyo taas waa qodob waaye qodobka waa ku maasan yihiin biyaha in runtii biyaha oo dhanaha ah ee badda ah ee cusbada ah dadkana way dhibaysaa qaar baa xasaasiyad ku leh dadka ku qaba maxaan ku dhahaa qaar baa ma ku weysaysan karinba waxa kale oo dilaysaa qalabka tuubooyinka dilaysaa xamaamaha ay dilaysaa wax oo dhan bay dilaysaa meeshan way halaynaysaa marka ayadana waxaad sheegteen inayba almost ay tijaabo ay galeen oo ay si fiican u wadaan waan uga mahad celinaynaa cidii iyo wasaaradda iyo dhammaan cidda kala shaqeysay inay systemkaas la bedelo waxaan rajaynayaa asagana insha Allah inuu shaqo galo sida aad ii sheegtay wasiir systemyadan gaar ahaan beltskan wareega iyo qalabka waa run waan garanayaa in hadda la repair gareeyay oo si fiican u repair gareeyeen waan soo marnay waan shaqeynayaan si wanaagsan waa ku mahadsan yihiin way ku mahadsantihiin laakiin 9 maalmood baad yaad ku ballanteen inay bedelaan 9 ka maalmood dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay system cusub inay arkaan oo shaqeynaya asagana in la arkaan sidii loogu talagalay in la arkaan rabnaa iskaanada waa ku mahadsan yihiin inay iskaana cusub
ay keeneen kuwa kalena ay keenayaan laakiin weli waxaa طبعا hay-adaheena ku shaqeeya gaar ahaan kuwa amniga oo culays ka haystaa inuu waxaani uu one single face u yahay culays bay leedahay marka in double laga dhigo oo ay boorsada waxa ku jira si sax u arkayaan oo xaggaba ay ka arkayaan ayaan u baahannahay oo waa la isku halayn karaa hadeertanba laakiin haddana si taas ka sii weyn in la sameeyaan u baahannahay insha allah taasna inaad xoogga saartaan isku dayaynaa dadka Soomaaliyeed waxaan maanta u sheegi karnaa inay haystaan airportkii oo sidii aad iyo aad uga qurux badan oo sidii ka wanaagsan waxyaabaha yareer ee dhimanna waa waxa haddana aan rabnay in la dhammaystiro waan garwaaqsanahay waqtiga inuu aad u kooban yahay oo 2 isbuuc ay aad u kooban tahay in laftaydu 2 isbuuc waxa la qabtay anaa la yaabay runtii waxaan runtii u mahad celinayaa dadkii Soomaaliyeed ee nala wadaagay problemkaas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dad Soomaaliyeed nala wadaagay oo meeshaas dhibaato weyn baa ka jirta aad bay u mahadsan yihiin meelo kale oo nala wadaagay baa jira oo maxaan ku dhahaa meelaha dadka loogu adeega waa tagaynaa sidan oo kale ayaanan insha Allah hadii la yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan ayaan uga dul dhici doonaa marka dadka ama kambaniyo wadaan laakiin dadka dawladda xukuumadda ama shaqaalaha dawladda haday yihiin saraakiil ciidan ha noqdaano amni ama ha noqdaan kuwa civil ha noqdaan dadka shaqada haya meel kasta oo dadka Soomaaliyeed loogu adeegayo waxaan faraynaa inay si qurux badan oo hufnaan leh inay u adeegaan qalabka ay ugu adeegayaanna inuu noqdo qalab standard ah oo dadka Soomaaliyeed anfacaya inuu noqdo kulli waan soo wada fiirinaynaa waxaan rabnaa inay dadka Soomaaliyeed ay in badan bay dhibaato ku soo jireen dawlad la'aan bay soo mareen dawlad aan si fiican u wada shaqeynayn hay'adaha culays badan bay soo mareen waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ilaawaan waxaas oo helaan sida dadka kale dunida loogu adeego in loogu adeego si ay ugu raaxaystaan dalkooda oo ay sharaf iyo karaamo u dareemaan inay dalkooda ku leeyihiin lacagaha laga qaado iyo canshuurta laga qaadana iyaga laga qaadana loogu bedelo adeeg wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin aad iyo aad bay taasna ay muhiim u tahay oo ay tahayna qof walba uu dareemo oo dawladdan u shaqeeyay dadka Soomaaliyeed u shaqeynayo shaqaale u yahay xoolahoodii buu ugu shaqeynaya mushaaraadkan kulligan wada qaadano dadka Soomaaliyeed baa bixiyay ayaga laga qaaday marka waa inaan shaqaalaan u nahay si fiican inaan ugu shaqeyno loo baahan inaan si fiican ugu shaqeyno ayaa loo baahan yahay dadka loo shaqeeyay waa ayaga loo shaqeeyayaashu waa ayaga annagana waxaan nahay dadkii u shaqeynay marka waa inaynu labadooda marka waa inaan u malaynin inay inagu koreyno ayaguna ay inaga hooseeyaan ayaga ina shaqo siiyay inaga inaga koreeyo madaxino ah marka waxay doonaan ayagu doonayaan inaan ku shaqeyno ayaan u baahannahay private-ka laftooda dadka private-ka ah ee dadka u adeega waxaan doonaynaa inay adeeg qurux badan oo haddana sicirkiisu macquul yahay dadka inay shirkadaha laga sheeganaya laftooda airport-ka ka shaqeeya oo dadku meeshaan istaagaba ay ayaga soo horeysinaayo leedahay shirkad Hebland ku dhibanahay noocaas shirkadahaas iyaguna way isgaranayaan wasiirkana waan iska wareysanay waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed in si naxariis leh in loola dhaqmo oo adeega loo qabanaya in adeeg fiican u noqdo sicirka ay loogu adeegayaan u noqdo sicir ay dadku garaysanayaan oo macquul sicir macquul ay dadku garaysanayaan marka dadku waxay soo dhigayaan xujooyin aan ka jawaabi karin war waa boorsooyin baa laga qaaday ana laga qaaday 1 kilomitir baa la waday $100 aan ku bixin karaa waana la qaadan waa la dhigay marka waxaan u baahannahay in looga jawaabo dadka Soomaaliyeed wasiirow arintaas shirkadahaasi waxaa loo baahan yahay inay way mahadsan yihiin airport-ka inay wax u qabtaan waan aaminsanahay amniga inay qayb ka qaataan waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed oo dib badan ku dhici lahaa oo safaf badan gali lahaa inay soo qaadaan ay u soo fududeeyaan way ku mahadsan yihiin inay dad Soomaaliyeed shaqaaleysiiyaan oo ay shaqo abuur sameeyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin haddana waxaa la rabaa inay ku daraan inay dadka u naxariistaan oo dawladdu intaas oo dhan way qiimeynaysaa
waa canshuur bixiyayaal way maadsan yihiin laakiin haddana waa inay dadkii Soomaaliyeed qofkii loo adeegay Soomaaliga waa inaan lagu tiigsan waayo ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa si wasiirku sheegay waa joogaan saraakiishii wasiirka ayaa arrigan ugu sareeyo mareeyihina waa kan aviationkina waa noo joogaa meeshaan siyaasadeeda iyo soo loo shaqeynayaa iyo waxaas iyaga mas'uulka ah wasiirka ugu odaysan waxaan rabnaa inay hay-aduhu sidaas kula shaqeeyaan dhammaantood waa adeegayaal waxay ka shaqeynayaan amniga waxay ka shaqeynayaan maxaan ku dhahay documentski oo dadku ay u baahnayeen ay bixinayaan waxay ka shaqeynayaan maaliyaddii ayay ka shaqeynayaan intaasoo dhan way joogaan waana laga maarmaan adduunka oo dhan way ka shaqeeyaan la-aantoodna ma shaqeyn kara airport marka aaday muhiim u yihiin marka waa in laysu fududeeyo shaqada qolo walba hay-adeeda shaqadeeda in loo fududeeyo kuwa amniga waa in amniga loo fududeeyo overall maamulka halkaana waa in wasaaradda iyo hay-adaha iska leh waa in loo fududeeyo lagula shaqeeyo waay hal dawladaan nahay waa inaan hal dawladnimo ku shaqeynaa loo baahanya marka wasiirka warkiisa waa maqlayseene taliya xamdi iyo taliyayaasha kale waxaan rajaynaynaa in lala shaqeeyo wasaaradda si team worka loo shaqeeyo qofkaa Soomaaliga baa loo shaqeynayaa amnigiisa fayadhowrkiisa maxaan ku dhahaa karaamadiisa iyo in loo fududeeyo safarkiisa ayaa iyo Soomaaliga kaliya ma iyo cidda kale inoo imanaysa ama inaga tagaysa ayaa loo shaqeynaya marka in la wada shaqeeyaan rabnaa ilaa dhamaadka haddii aan la joogtay waad ku mahadsan tahay muuqaalka sii gudbi oo laagshii saar siina sheer galay mahadsanid